Bismillaah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan salaamo dhammaan asxaabteeda qaaliga meel walba adduunka ka joogtaan soo dhawaada. Waan kaga mahad celinayaa sida quruxda badan ay daawataan maasha Allah. Hadaa hore ila joogo jirto comment asxaabtaadana igu sii share garee. Hadaa igu cusubtaan subscribe biideh gambaleelka furo si ay kugu soo dhacaan fiidiyoyada insha Allah. Asxaabta cusubna waxaan idin leeyahay soo dhawaada. janaalkiina waa insha Allah. Maanta cunto karin ma noo wado, macmacaan ma noo wado, maxaa noo wada alaabta timaha lagu qurxi lahaa insha Allah. maasha Allah tabarakallah. alaabtan horteena ka muuqato ayaa hal in kugu sharxi doona maasha Allah. alaabtan bes hadaa isticmaashid timahaada waa ka gar doontaa insha Allah. waxyaabo badan hadaa tintu isticmaashid tintu way ka halaawaysaa saas ula soco insha Allah. laakiin hal xab ku koobnaa wado al yiraahdo. maanta waxay noogu bilaabanaysaa sharaxaadeena sida tan xabad ukuna ah halkaan oo yaalo iyo maxaa yaalo halkaan yogurt ayaa yaalo ingiriishka yogurt ayaa lagu dhahaa insha Allah. iyo maxaa carabi lagu dhahaa sabaadi carabi lagu dhahaa maasha Allah. labadan ayaa isku qasi doonaa insha Allah haduu al yiraahdo. ukunta iyo yogurtka ayaa isku qasi doonaa laakiin alaabta marka hore idin sharaxaya. ukuntan insha Allah waxaan isticmaali doonaa meesheeda oo jaalada ayaa isticmaali doonaa insha Allah. haduu al yiraahdo cadaanta ma isticmaali doono, ana cadaanta ma jeceli. hada aad jecesha aad leewa insha Allah. marka alaabta isticmaalo kadib maxaa isticmaali doonaa waxaan isticmaali doonaa insha Allah shaambadan ayaa isticmaali doonaa maasha Allah. shaambadan aad ay u fiican tahay. aan shaambadan shaamba ahayn ma isticmaalo maxaa yeelay agoolka ay lid ku tahay. waxyaabaha agoolka oo biyo kamid ah maasha Allah. tin agool lahna ma baxees asxaabey maxaa yeelay meesha ka bixi lahayd bay tahaaran tahay iska ilaaliya. liineen ka samaysan tahay shaambadan. shaambada oo nacnac ka samaysan oo iyadana waan jeclaa maasha Allah. tan laakiin liin ka samaysan tahay maasha Allah tabarakallah aad ay u wanaagsan tahay. soo borowee haduu al yiraahdo. marka shaambada u isticmaalno kabacdi maxaa isticmaali doonaa haduu al yiraahdo. kabacdi waxa u isticmaali doonaa xamaamseed meeshaan yaalo. laba xamaamseed ayaa yaalo. labada xamaamseed waxaan jecelahay midkan ayaan jeclaani maasha Allah tabarakallah aad ayuu u fiican yahay. wuxuuna ka samaysan yahay toon ayuu ka samaysan yahay xamaamseedka. markuu toon ka samaysan yahay maasha Allah tabarakallah aad ayuu u wanaagsan yahay asxaabe. magaciisa waa kana hada screenshot ka qaadanaysid oo kugu soo dhaweeyay kaamirada maasha Allah aad ayuu u wanaagsan yahay. waxaa kale hadaa kan waayo waxaan isticmaalaa kan ayaa isticmaalaa maxaa yeelay marmara suuqa ka weynaysaa laakiin maasha Allah kan ayaa isticmaalaa hadaa kan kala waayo. aad ayuu u fiican yahay asigana toon ayuu ka samaysan yahay maasha Allah tabarakallah. marka halahan isku isticmaalo kabacdi maxaan sameynayaa tinta saliidee marinayaa. tinta waxaan marinayaa insha Allah saliidan si saytuun waaye maasha Allah aad ayuu u fiican tahay maasha Allah tabarakallah. hada tan waa rubac waaye iyadoo ka weyn way jirtaa iyadoo dhexdhexaadana way jirtaa maasha Allah. hadaa si saytuunka oo haysanin maxaa marinaysaa saliidan kale waa isticmaalaa iyadana maxaa lahaa juusul hindi ka samaysan tahay amba waxay ka samaysan tahay coconut oil ay ka samaysan tahay maasha Allah. magaceedan baarshuuda lahaa iyadana aad u wanaagsan tahay saliidan maasha Allah tabarakallah. timaha way qurxaysaa kaal iska aragay ka dhigaysaa insha Allah. iyadana baroobay haduu al yiraahdo. hadaa tahay dadka saliida neceb maxaa isticmaalaysaa waxaan isticmaalaysaa kareemkan isticmaalaysaa. kareemkan wuxuu ka samaysan yahay coconut oil oo ka samaysan yahay asigana qumba ayuu ka samaysan yahay maasha Allah. aad u wanaagsan yahay kareemka maasha Allah tabarakallah. waxyaabaha aan jecel oo ka mid yahay. marka maxaan sameynayaa alaabteena ayaa isku dardarsanaynaa haduu al yiraahdo. maxaan sameynayaa ukunta meesha jaalada ayaa soo qaadanayaa insha Allah. la soco asxaabtayda la socda maasha Allah. ukunta meesheeda jaalada ayaa soo qaatay. wax yar ayaa isticmaali doonaa insha Allah asxaabe maxaa yeelay cunug yar ayaa u marinayaa. qof weyn markaa taa maasha Allah laba ukuna ka dhigi kartaa. yogurtkana xoogaa ayaa u badsanaysaa insha Allah. saas ula socdo maxaa yeelay qof weyn iyo cunug yar isku timo ma ahan adinka waa ogtiin maasha Allah. timaha waa qabanaysaa waa ku masaajeynaysaa kaalis arqurux baca ku xireysaa. bacda timaha loogu talagalay ayaa ku xireysaa. hadaa haysanin waxaa sameynaysaa bac qafiif ayaa ku xiranaysaa insha Allah. markaa hawsha qabanaysid guriga hagaajinaysid jikada hagaajinaysid
adiga maalin hooleeda camal mari bisha camal 3 mar u isticmaal maasha Allah bisha 3 mar u isticmaashid ugu yaraan adi 2 mar hadaa ka badan awoodid maasha Allah tabarakallah waxaana ku heynaysaa alaabtan adiga ugu yaraan nisfi saaca ku heynaysaa ugu badnaan 2 saac maasha Allah maalin hool qabanaysid ku aadi caruurtana maasha Allah way dhibadan yihiin marka u marisid ku sheekay waxyaabo kale ku mashquuli maasha Allah alaabtan aad ay u wanaagsan tahay soo baroobay insha Allah asxaabtiin ugu faa'iideeyay familkan ugu faa'iideeyay insha Allah marka alaabtan u isticmaasho asxaabtii waxa sameynaysiin tinta waa kala qaybinaysaa marka dhaqdid waa duuduubaysaa intee ka qalasho saliida marinaysaa maasha Allah waa ku masaajeynaysaa masar baad ku xiraysaa inta tinta saliida markaa marisid oo kala xirtid dadaa waxay dhahayaan barkinta iga halaabayso war barkin halaabayso ma jirto barkinta waxa iska xijisaa maraq leeloon iska xiji baad iska saar maasha Allah barkinta saliid ma kaaga halaabayso teeda kale waxa idin sheegaa tin haltaa ku lagu xiro oo qalashay tintaas ma baxee waxa kaloo idin sheegaya asxaabteyda tinta saliid fiican mariya maxaa yeelay geedka markii la waraabiyo wuu baxaa tina waraabin ma baxeeso maasha Allah tabarakallah saas oo socdo waxaan rajeeynaa fiidiyoga inaad ka faa'iideysatiin asxaabtiina oo faa'iideey doontiin haddii aad yiraahdo intaan fiidiyo aan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay salaamu calaykum